maayir ku-xigeenka degmada Xudun Cabdinaasir Cabdulqaadir Sheekh Cabdi Guur oo isugu yeeray odayaasha culimada taliye ku-xigeenka booliska degmada Xudun waxa ay baaq iyo digniin ka soo saareen maandooriyaha qamriga oo biryahan farabaas ku hayay dadka deegaanka. Odayaasha iyo culimada maayir ku-xigeenka degmada Xudun iyagoo arrimahaas ka hadlay waxa ay yiraahdeen sidan: magacayga waxa la yiraahdaa Jaamac Ismaaciil. konsalkaas waa xagga Soomaaliland. waxaan haystay dib fara badan 30 sano khamri dhuxul til qashin wixii magaalo leedahay waa naga maqnaayeen. maanta konsal baanu helnay. waxaanu leenahay u horeyn shirka maanta aanu qabanay iyo saxaafadan waxaanu ka hadlaynaa xubin baanu qaadanaynaa. waxaanu ka hadlaynaa qabrigu waa nabaabi caruurtii ardaydii baa sida xawaashka loogu xidhay. baxa yar baa lagu xidhado ardayda la siiya oo la yiraahdo waa daweecuna. haddii aanu nahay degmada Xudun waa yeelkeedii maanta ay sanadku yahay 22kii bishii 7aad 6deedii shir baanu ku qabanay guriga dawladda hoose ee degmada Xudun. shirka waxa laga hadlay wax badan oo wadanku markii uu foodada ahaa ee aanu dawladda lahayn dalka Turxaana oo dalka ku faafay oo aad 100% aan uga xumayn. waxaa shirka wacay gudoomiye ku-xigeenkii gudoomiye ku-xigeenkii deegaanka Xudun baa wacay shirka. annuna waayeelkii haddaan nahay waanu soo ajiibnay. waxaa laga hadlay waxyaalaha badnaa ee uu dhaqan geliyay awoodda u yeelay maamul la'aanta awoodda ay u yeeshay. waxaanu isla qaadanay wixii ay u yahay lambar 1 qamrigu maslaxada dalka iyo dadkaba wax u dhimaya in iyana ay waajibkooda ka gutaan. annuna aanu gacan aanu ku siino lambar 1 waxa uu qamriga oo sida ragga hore ay u faahfaahiyeen aad iyo aad على وصحبه وسلم. halkan magacay waa Said Xasan Maxamed. waa 7 bishii 7aad 2021 shirkan waa shir ay qabsatay degmada Xudun kaasoo ujeedadiisu ay tahay qodobka ugu horeeya ee la isla gaaray maanta uu yahay in laga hortago waxa la yiraahdo khamriga oo bariyahan dambe oo dhan faraxu degmada ku hayay. waxa la isla gartay in maanta waxa la yiri hadal qabiilo ka tashatay baa la yiri nin ma oran waayo. haddii aanu nahay maamulka cusub ee degmada Xudun odayaasha waxgaradka culimada aqoon-yahanka dhammaan qodobka way isla garanay khamrigu in Xudun laga joojiyo. awood buuxdana lagu qaado meel lagu soo wada jeesto. taasi waa sidaas. qodobka labaysa waxaanu leenahay gobolka taliya qaybeedka bara saabka waa in iyaguna si mug iyo miisaan leh arimayaasheedii iyo waxgaradkeedii sida odayaashu hore u sheegeen waxa kan dhibka kan magaalada ka jira dhan baa looga soo wada jeedaa waana la isku raacsan yahay. maqaadiraadkan magaaladii qarribay 30 sano ee burburku dadku ahaa annagu sidii loo sheegay maamulka waxaanu leenahay hadir way noloo bilaa ilaahay baa mahad leh. maanta halka isugu keenay anigu waxaan u hadlayaa maamulka biliiska. mar haddii odayaashii deegaanku ay maanta soo saareen baaqa oo hawshii ay nala qayb qaateen oo soo garab taageen oo wax aad loogu mahadnaqo. annaguna ka maamul ahaan iyo ka ciidan ahaan naf iyo maalba waa duldhigaynaa. baaqa odayaashu soo saareen iyo golaha deegaanku inuu sideeda u fulaan. dil joogto ah rasaas markasta ka dhacaysa waxaana fududeynaya wadaroogada weeye. odayaashu iyo culimaduunku waxay isku raaceen in ilaa iyo cuqaasha laga saxeexo waxgaradku isu baxo baalka meel looga soo wada jeesto. halkan waxaa ka jirta ciidanku aad iyo aad waa awood yar biliiska ah
waxaan la hadlayaa taliye qaybeedka gobolka waxaan la hadlayaa taliyaha guud oo bilayska Somaliland xudun gaadiid ma leh bilays ciidan bilays oo wad walana ma leh ciidanka ilaahan jirtay gobolka la geliyo dib baa loo qaaday dhowr inan baa jooga 10 nin oo meel kasta shaqo kaga jira oo labada taliye ku jiraan waxaasuna wax degmo dhan Abdullaahi Maxamed Kaarshe Abdullaahi STV-ga qaranka Somaliland xudun